wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Jubbaland Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa tababar soo socday muddo 3 cisho ah u soo xiray 30 kamid ah saxafiyiinta Jubbaland. Xiritaanka aqoon kororsigan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Naaji Xaaji Cabdullaahi, xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta Jubbaland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Akhyar, gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta Jubbaland Najmo Cusmaan Yuusuf iyo marti sharaf kale. waxaana intii uu tababarka socday lagu baranayay tiiraanyo bixin ama waxa loo yaqaan cuqdad nafsiga. ugu horeyn qaar kamid ah saxafiyiintii loo qabtay aqoon isweydaarsigan ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen aqoon kororsigan. Trauma baa laga hadlayay oo diiradda la saaray. Trauma waxa weeye waa macnaha dadka laba qaybood oo dadka uurku taalada qaba ama traumada leh ee qaabkii loola tacaamuli lahaa sababtoo ah wariya tahay macnaha ruux trauma qaba sida haddaad waraysi ka qaadayso haddaad wax weydiinayso qaabkii loo weydiin lahaa oo ka duwan totally-ba qaabkii ruux caadi ah waraysi looga qaadi lahaa. waxaa markaas saddexdan bari aan qaadanaynay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd sidii qofka markuu banaankaas tago oo xaalada ay la soo darsaan ama ay la soo gudboodaan sidii uu isu badbaadin lahaa iyo sidii uu u ilaalin lahaa anshaxa saxaafadda. xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta Jubbaland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed iyo gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta Jubbaland Najmo Cusmaan Yuusuf ayaa dhankooda madasha hadal ka jeediyay. waxaa sharaf iyo maanta in aan mar kale goobjoog ka ahay xiritaankii barnaamijkan 3 maalmood soo socdayna waxaan rajaynayaa in wax badan oo maskaxdeena siyaabo kala duwan ugu jiray oo aan horay u ogeyn laakiin aanan ku baraarugsanayn si fiican loogu baraarugay. barnaamijkan oo tiiraanyo bixinta ama urtaalada aad ba eray bixinta loo sameeyaba waa barnaamij u muhiim ah qofka saxafiga ah xilliga uu shaqeynayo shaqagalka yahay. waxaa loo baahan yahay isagu inuusan dhaawac u geysan bulshada uu xogta gaarsiinayo isaga dhaawac ku yimaadana inuu fahmi karo oo uu la tacaali karo naftiisa hadduuba la kulmo waxyaabo mahadhooyin ah ama urtaalooyin ah oo dhacdooyinka iyo warbixinada iyo goobaha uu ka shaqagelayo uu kala kulmo. sharaf ay tahay in wariyaal gaaraya ilaa 35 loo qabto barnaamijkaani. waa uga mahad celinayna Somali SWJO sidoo kale idil iyo caynte oo iyaguna waqti badan geliyay barnaamijkan in dadka ka faa'iideystaan. waxaan leeyahay waxaan filayaa 3 bari ee tababarkaani ay ka faa'iideysteen wariyaasha. waxaan leeyahay haddii ha ku shaqeeyo oo dalkiina dadkiina ugu shaqeeyo waxaad barateen. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Jubbaland Suleymaan Maxamed Maxamuud oo soo xiray aqoon kororsiga ayaa u mahad celiyay SWJO iyo UNSOM oo tababarka bixinayay sidoo kalena saxafiyiintii loo qabtay tababarka kula dardaarmay wixii ay barteen inay bulshadooda ugu adeegaan. waxaan u mahad celinayaa ururka suxufiyiinta gabdhaha iyo maxaa tiraahdaa hay'adda UNSOM oo qabatay mashruuc ama tababar aad muhiim u ah loogu baahnaa waqtigii loogu talagalay. maxaa yeelay wariyuhu waqti walba wuxuu u taagan yahay bulshada inuu wax u sheego. waa horseedkii bulshada waa maxaa tiraahdaa muraayadii shacabka. maxaa yeelay waqti walba wixii dhaca wixii dhintay dhibkii qofka gaaray meeshuu qarax ka dhacay masiibadii dhacday dadkii sheegi lahaa baa tihiin. marka sidaas laaligeed iyo qofka tooro oo maysanba marka barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij muhiima oo hadduu alla idmaayo waqtigii loogu talagalay ku soo aaday. 3 bari kuma filnaan u malaynaa. insha Allah waxaan codsanaynaa haddaan wasaaradda warfaafinta nahay in muddo kale lagu daro. waxaan leeyahay inta ka faa'iidaysatana ha gaarsiiso wariyaashii kale oo aan nasiibka u helin inay ka qayb galaan. nin walbana ha gaarsiiyo goobihii asaga uu maxaa tiraahdaa shaqada kaga imid inuu maxaa tiraahdaa gaarsiiyo. Cabdiqaadir Axmed Cali, telefishinka Jubbaland, Kismaayo.